السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذن سلامي. It's Mama Leila. maanta waxaan ka hadlayaa topic aad iyo aad interesting u ah. Aniga at least interesting u yahay. And it should be waxaana waajib ah inuu dad badan interest u noqdo because haddaadan fahmin topican waxaa qalqiil ku noqonaysaa in lagu gumaysto mustaqbalka haddaad sii noolaatid. Marka waa topic cabsi ah, diyaar u ahaada. waxaan maanta raba inaan idinla wadaago waa topic aad iyo aad u culus. waa topic inta badan top secretska ah, waa sirarka ugu waaweyn Maraykan iyo dowladaha hormaray ay soo bandhigin inta badan qoladan saddexda xurafta ka suubsan oo sirdoonayaasha Maraykanka oo kuwan gudaha maahe kuwan dibadda ah. magacooda waad fahamteen. caada ka bilaabada caada sida cali oo kale ama cabdi oo kale. kuwaas waxay soo saareen kelmad ay ku beenaynayaan qofkii waxyaabahan top secretska ama sirarkan waaweynka ah qofkii bannaanka soo dhiga. kelmadaasoo ay u bixiyeen conspiracy theory. i dhagaysta marka. waxay ka taagan tahay conspiracy theory aragtinimo khiyaanaysan ama khiyaano ku jirto. aragtinimo sir leh oo khiyaano ku jirto. qofkii fahmay. marka waxay ka taagan tahay qofkii waxyaabahan oo kale ka hadla dhag ha u dhigin. waa qof qayaali ah oo waxyaabahan ku mashquulay. waxyaabahan ma aragtay waxay gaalada ugu wacaan qofkaasoo kale waa creative. maskaxdiisa creative weye. meel fog bay gaaraysaa camal. ma aha qof waxaan waaqaca lagu noolyahay ka fikiraayo ama ka hadlaayo. waa wax iska qayaali ah. marka maxay u suubiyeen kelmadaas conspiracy theory? Maraykan iyo dowladahan horumaray Ingiriiska, Israa'iil xitaa way ku jirtaa, South Africa iyo wadamo badan oo inta Western Europeans ay u badan yihiin iyo meelahay ay qabsadeen sida Maraykan iyo Canada oo kale.